السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا ku xiran kanaalka Dayax-tag aan vlog soo dhawaada muuqaal cusub heliya asxaabta waxaan doonayaa caawa inaan idin la wadaago application kaas oo runtii aad u faa'iido badan muddo waxaan raadinayay applicationadan marka uu qofku fariin ku soo diro WhatsApp-ka intaanad furin uu qofkii ka delete gareeyo marka dhowr application oo kala duwan baan arkay mid walba tijaabo aan ku sameeyay muddo badan ilaa aduu 3 4 ama 5 bay haayeen laakiin kii ugu wanaagsanaa waan helay marka indhaweyd baan hayay ma garanay waxaan idin la wadaagi waayay caawan jeclaysiin in idin la wadaago yaan waxba hadalkeeda ku dheerayn kana bahalka waxa la yiraahdaa application-ka waxa la yiraahdaa magaciisa waa kaan halka idin soo dhigo Rehistory baa application-kaas waa application runtii faa'iido badan Play Store-ka ka helaysaan bal tijaabadiisaynu marinaynaa application-ka markaad la soo degtaba allow dheh gooni xagga hoosaad furaysaa waxaad notification-kaad u furaysaa allow markaan iraahdo waxaan eegayaa markaa fariimaha WhatsApp-ka ee ii yimaada anigoonan arag oo qofku dubiga la noqdo aan tijaabiyo imika fariin baan isu soo dirayaa haddii la idmo fariinta markaan isu soo diro asxaabe waartaan halka message hore oo aan delete gareeyo tijaabaha waa jira imika labada message ee dambe isdaba yaacaya waxaan delete gareynayaa labada message ba inta aanan furin dib baan u delete gareeyay haddaan WhatsApp-kii aado halka wuxuu iga tusayaa 3 application in arkaysaan in kala mooyay 3 fariimood oo la delete gareeyay halkaan eego 3 message waliba way kala horeeyeen halkan kale waxa arkaysaan Rehistory inuu ii hayo inuu isna notification ku soo dhacay oo idin tusayo message-kii la delete gareeyay marka WhatsApp-ka intuu soo aadno WhatsApp-ka toos markaan u tago waa kuwa message-yadii mid waxay ahayd 12 iyo 20 daqiiqo waa habeenimo kuwa kalena waa 1 iyo 3 daqiiqo islaamka uu 10 duubayo sidaas la iga delete gareeyay hadda halkan kama arki karo marka waa inaan tagaa application-kii aan aado halka uu ii sheegayaa my queen waa ka i tusaya laba message oo kaliya tusaya ay sababtu tahay ka hore waxa aanu ii tusaynin application-ka intaan soo dejisteen hore u isticmaalay baan dib u saaray markaas intuu maqnaa application-ku iga maqnaa ayuu message-kaasi soo galay imika qudin idin kaarkii inaan hadda allow gareynayo aan ogolaanayay inuu system-ka kala shaqeeyo labadii message aan soo diray anyway waa kuwaas waa ku halka yaala sidaas ayuu runtii u yahay waliba imika kaliya ma hadii muddo dheer xitaa tahay ilaa intaan tijaabinayay week waan tijaabiyay wuu haynayaa oo waxaan filayay wali waqti ka sii badan inuu haynayo maan tijaabininta programkaasna caawa idinku talagalay waa application runtii waan ku ori ciidanka khayraadda iyo cid walba qofka hadduu yar qalad ku soo ma garanaysaa fariin uga soo dhacday waxa weeye notification-ka toos buu qabanayaa bahalkaas bal waa ila soo eegaysaan ila soo tijaabiya khayr badan baan idin rajeynayaa asxaabta waxaan leeyahay ku soo dhawaada kanaalka asxaabta cusub intii hore